meel Somaliland lagu iibiyay Somaliland lagu iibiyayna markhaati kama aanu ahayn wax Somaliland dhibaato u ahna saxiixid kama inaan qayb gelin guul weyn weeyaan sharaf weyn weeyaan madaxa kor u taaga ku farxa guusha Somaliland soo hoyatay madaxweynaha federaalka ayaa wakiil uga wada haddii iyagu gobollo iyo maamul goboleedyo iyo ay kala leeyihiin iyaga u talawaa waa waxyaabaha dakhliga weeyaan laakiin madaxweynaha federaalka ayaa wada matala madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha Somaliland labadooda ummadood wada matala ayaa heshiiska wada galay oo heshiiska wada saxeexay markhaatina uu ka ahaa madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele marka cidii taa ka soo horjeeda طبعا dadba ka xun jiritaanka Somaliland horumarka Somaliland nabadgelyada Somaliland inay wax ka yiraahdaan hadii طبعا waa laga filayay wada jiritaanka ayaa baanay jeclayn oo ay ka soo horjeedaan marka cidii dhibaatooyinka Somaliland la dhinaca shubiyada Somaliland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya meel bay uga soo wada jeedaan